jirtaa heshiis la'aan ma shaqayn karta shirkadda wax la isku og yahay ayaa maanta haddaa adiga imaatid oo tiraahdo hallay caymiyo caafimaad caymisaa rabaa heshiisaa lagaa saxiixaa heshiiskaasi waxaa ku jira marka qodobo aad u fara badan waxaa ka mid ah xilliga uu dhacayo caymiskaaga limitka aad leedahay qaladaadka aan loo baahnayn inaad gashid waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaa waxyaabo aad u fara badan ayaa ka mid ah heshiiskaasi ku jiro heshiiskaasi shirkaddan kama bixi karto adigana kama bixi kartid inta sanadkaasi uu ka dhamaanayo aad u mahadsantihiin caymiska adduunka aad iyo aad ayuu u fara badan yahay qaybna waa qayb bulshada si toos ah u taabanayso qaybna waa bulshada qayb aan si toos u taabanayn labada ugu waaweyn ee bulshada taabanayso sida guud horta caymisku wuxuu u kala baxaa mid guud iyo midka life insurance-ga ah ama general insurance-ga ama life insurance-ga generalka marka wuxuu usii kala baxaa kuwa si toos ah u taabanaya bulshada tusaale waxaa ka mid ah caymiska gaadiidka waa mid bulshada taabanaya caymiska caafimaadka waa mid bulshada taabanaya caymiska safarka waa mid bulshada taabanaya hantida caymiska waa mid bulshada taabanaya caymisyaduna aad ay fara badan yihiin marine insurance ayaa jiro caymiska rarka ayaa jiro oo dekad inta kasoo qaadid dekad kale alaaba ku dejinaysid caymis loo qaado dekadii aad kasoo qaadid warehouse-ka geenaysid caymis loo qaadaa jiro adduunyada hormartay oo aad ku waaweyn xitaa taleefanada hadda gacantaan ku qaadana xitaa waa la caymiyaa qofka hadduu ka jabo ama ka halaabo caymis ayaa jiro aad ayuu fara badan yahay waxyaabaha la caymiya lacagta ayaa la caymiyaa mas-uuliyadda la caymiyaa tusaale ahaan waxaan ahay aniga maamulo bangi tusaale ahaan adiga waxaa tahay qasnad ayaa haysaa xisaabaa isdaba marin kartaa waa la caymiyaa waxyaabo aad u fara badan la caymiyaa ayaa jiro lacag baa meel ka soo qaaday meel baa geenaysa inta u dhaxayso lacagtaas haddii risk soo gaarto ama lagaa dhaco ama ay gubato ama wax dhibaato kale ku dhaco waa la caymiyaa marka caymisyada aad ay u fara badan yihiin su-aal aad u muhiimsan maadaama aan nahay soomaalida dad muslin ah boqolkiiba boqol su-aashaasi in meesha la keeno aad iyo aad ayay muhiim u tahay kow caymiska islaamka ay haatan shirkaddan u ahay operation manager-ka ay ku shaqeyso waa midka islaamka ee loo yaqaano takaafulka ama iskaalmaysiga caymiska islaamka marka laga hadlaayo iyo caymiska kale waxyaabo ay ku kala duwan yihiin ayaa jiro caymiska caadiga ah waxay ku kala duwan yihiin kow sanadka hadduu dhammaado oo qofkii khatar ay soo gaari weyso lacagtaas intay aadaysaa marka laga reebo operator fee-ga ama qofka shirkadda caymiska khidmadeeda markay ka goosato lacagtaas intay aadaysaa midda islaamka lacagtaasi qofkii lahaa ayay u noqonaysaa boqolkiiba boqol midda kale ee caymiska confessional insurance-ga ahna mana soo noqonayso waa farqiga ugu weyn u dhexeeya labo shirkadaha caymiska qaar waxay suubiyaan muxuu ahaay maalgelin ayay suubiyaan maalgelintaasi oo ah wixii soo haray lacagihii soo haray in si qofkii lacagta dhiibtay oo mar labaad u faa'iido maalgelintaas ay suubinayaan haddii caymiska islaamka la joogo lama ogolo waxyaabaha xaaraanta ku ah in la maalgeliyo islaamka oo muxuu ahaay diinta islaamka sida khamrada qamaarka ribada iyo wixii lamid ah diinteena islaamka adduunka waxaa ka jiri jiray marka hore caymiska confessional insurance-ga confessional insurance-ga wuxuu ogol yahay asaga wax walba muxuu ahaay diinta ku banaanaan ama isku banaanaanin in la maalgeliyo marka labadaas farqi waaweyn oo u dhexeeyo waxaa kaloo jirto taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo meesha kasoo bilaabay caymiska islaamka waxaa jirta adduunka marka hore caymiskan waxaa jiray confessional insurance-ga wuxuuna soo bilaabay asaga naftigiisa 1800 iyo dalkaas ingiriiska ayuu kasoo bilaabay 1850 iyo xoogaagii wuu soo socday 1979 ee Suudaan shirkadda Suudaan ee takaafulka Suudaan ayaa ugu horeysay shirkaddii ugu horeysay caymis ee islaam ee laga furo adduunka shirkaddaasi ayaana muxuu ahaay ugu horeysay markii shirkaddaasi soo bandhigtay waa la isku qabsaday culimada fataawada dalkaasi Sacuudi Carabiya ee muxuu ahaay fadhigoodu yahay Mako ayaa loo bandhigay 1985 ayay approve gareeyeen Masar sidoo kale jaamacatul Azhar waa approve gareeyeen markaas saas oo caymiska islaamka ama takaafulka loo yaqaano uu ku dhaqan galay adduunka meelo badan uu ka jira Soomaaliyana waa ka jira hadda dhowr shirkadood ayaa jirto saas ayuu caymiska taariikhdiisa marka aan soo koobo ayuu noqonayaa haddaan kusii darsado diinta islaamkana waxaa ka mid ah oo laga hayaa rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayh in qoomka ashcariyiin oo la dhihi jiray markay duulayaan ama ay safrayaan xeeray way iskugu keeni jireen ama go' ay wax iskugu keeni jireen wax walbay ku ridi jireen
inta safarkaas lagu jiro ayaa alaabtaas la isticmaali jiray. Marka qofaa wax yar keenayo, qofaa wax badan keenayo, qofaa meel dhexaad keenayo, markii lasoo noqdana wixii soo harana waa la kala qaybsan jiray. marka rasuulku wuxuu yidhi ashcariyiinta ayaan ka mid ahay, ayagan ayaga mid yihiin. ina dhaqankaasi wanaagsanaa midkaan hadda caymiska sida caymiska camal ahaa ayuu nebigu uu ammaanay. wuxuu yidhi ayagan ayaga mid yihiin minii wa ana minhum ayuu yidhi rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu caleyh. diinta islaamkana meeshaas ayaa loo deliishadaa in caymisku uu yahay mid ku saxa islaamka. marka hore Soomaaliya waa wadanka kaliya haatan inta la ogyahay wadamada adduunka caymisku 100% ka ahayn dadku waxay fahansan yihiin ama lagu dhaqmaba ama dawladdu ay waajib ka dhigto. su'aalaha tan wadamada dariska ah sektorka caymiska aad ugu xoogan yahay sida wadamada Kenya, Suudaan, marka la yiraahdo Ethiopia, Uganda. gaari waddo maraya ma jiro ilaa caymiska ku jiro waaye. hay'adaha ama dadka loo shaqeeyana waxa waajib ku ah shaqaalahooda inay caymis geliyaan. waxaa kaloo jirto khataro badan. hadda tusaalahaan kale xamar diyaaradaha garoonka diyaarad ma duusho ilaa caymis ay ku jirtaa. taasina waxaa waajib kaga dhigaya sharciga adduunka ICAO. marka Soomaaliya si waajib ahaan caymisku dadku waxay u isticmaashaa qaybta diyaaradaha oo waa aragteen dadka hadda waxay ka cabanayeen xajka in la qaaliyeeyay, laakiin ma ogo in diyaaradaha Soomaaliya soo aadaya mar walba caymiskooda uu ka qaalisan yahay caymiska kale adduunka, maadaama ay Soomaaliya aysan lahayn shirkado waaweyn oo diyaaradaha dadka ay u doontaan inta badan wadamada adduunka gaar ahaan wadamada Yurub. marka bulshada Soomaaliyeed faham badan kama haysato. Somaliland ayaa muddo haddan in ay kor isku soo qaadayso oo ay sharciga caymiska ay meel marisay. haatan bulshada laga yaabo in muddooyinka ama isbuucyada soo socda waajib looga dhigo caymiska. waxaa kaloo jirto wacyigelin badan ay suubiyeen, halka dowladda Soomaaliya haatan ay wado caymiskii sharciga caymiska. aan rajaynayno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub inay baas mariyaan, sidaas inuu ku dhaqan galo, sidaas in bulshada loo wacyi. sidoo kale fursaddan waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto shirkadda caymiska Baraka waxay la waday mashruuc hay'adda SDC ama Swiss TPH ama mashruuca la yiraahdo BSBH oo ah in loo soo celiyo caymiskii guud ee qaranka ee Soomaaliya ay lahaan jirtay. bulshadan la iskugu keeno hal meel pool ah oo ay wada isticmaalaan. mashruucaas ayay wadaan. marka mid ah wacyigelinta bulshada aad ay u yar tahay. dadka qaar ayaa aaminsan waxaan inay yihiin sidii forexisto kale, dadka qaar ayaa aaminsan waxaan in la isku dhaco, dadka qaar ayaa aaminsan in waxaan diiniyan ay isku dhaqmin maadaama ay og yihiin caymiska kale inuu diin ahaan ama ku banaaneen. marka waxyaabahaas oo la isku daray ayaa keenaya in dadku aysan faham fiican aysan ka haysan caymiska. aad iyo aad u mahadsantihiin.